بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وعشركii koob iyo tobnaad ee kitaabkii ajruumiga ahaa waxaan ku soo jirnay ficilkii qaybihiisii waxaan ka soo sheekaynay ficilka maadiga ah in oo dhammaadkiisa la kordhigayo ilaa xaalado yar ma ahane ficilka amarkaana in lagu binaynayo wixii mudaariciisa lagu reebi jiray waxaan kaloo ka soo sheekaynay ficilka mudaarica la yiraahdo in la godayo haddii uusan maaragtay wax kordhigaahi aysan gelin wax reebana aysan gelin labadii nuunna uu ka nabad galo oo nuunu tawkiid iyo nuunu niswa. hadda waxaan galaynaa ficilka mudaarica maxaa lagu kordhigaa aan maanta baranaynaa. ficilka waxaan niri waa la kordhigayaa haddii wax kordhiga ay galaan wixii wax lagu kordhigayay ayaan baranaynaa iyo tusaalayaashooda. marka wuxuu yidhi fannawaasibu ficilka waxyaalaha kordhigaahi 10 toban wey 10 shay ayaa kordhigta wahiya 10daas 10kaasi an waa kelimada leera an waa xaraf walan lan wey wa idan kelimada leera wey wa kay kelimada kay leera wey walaamu kay kelimada laamu kay leera wey walaamul juxuudi diidmada laamteedii wey وحتى وحتى كلمة ليرة والجواب جوابتي وي بالفاء فأدا إيا والواو اللي جوابه فأدا إيا واودا أو جواب تدعين أو كتيرا فعل كجواب كان نقول وي وأو كلمة ليرة هذا أو وي طبعا كاس هذا ونوش يجي أفر كم ده أيجا فعل كنفته ده أكرنجه عد كلا أم باهنا مت كم دنا waxa ficilka way kordhigtaa waxa kordhiga an gadaasheeda ku qarsoon oo ay jaa'iz tahay in la qariyo qasab maahan an qarsoonideedu ay tahay mid banaan ayaa kordhigta shanta kalena waxa kordhiga an ka dambaysa oo qarsoon oo waajib ay tahay in la qariyo waajibka naxwadan ka hadlaynaa waajibkii dambiga lagu dhacay kama hadlayno. hadaba afarta kordhigta ficilka ayagu naftooda u kordhiga waa kuwe waa afarta ugu horeyso an iyo lan iyo idan iyo kay kalimaadkan oo dhan waa xuruuf ah hadhow xuruufta markii aad tirsanaysa oo ku darsanaysa ho wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilu al-ism wala dalilu al-fi'l kuwana kamid ah xuruuftii. marka afartaas horo an iyo lan iyo idan iyo kay ficilka way kordhigaan ayaga kordhigaya ayaga naftigooda ah kordhigaya ayaga oon cid kale u baahan ayagu kordhigayaan ficilka. tusaale waxaan soo qaadanaynaa laba qof ayaa wada sheekaysanaya anti marka aan rabna tusaalaheeda marka qof kula hadlaya wuxuu ku yiri ushajicuka waxaan kugu dhiiri gelinayaa an tatacallama nahwaha ina baratid an tatacallama nahwa an tatacallama watas antaasi waa mid wax kordhigaysa tatacallamana waa ficilkii la kordhigay ushajicuka an tatacallama nahwaha ina baratid ayaan kugu dhiiri gelinayaa uu ku yiri adigi waa u jawaabto waxaa tiri lan uhmila nasiixatak ma dayici doono taladaada iyo nasiixadaada iyo waanadaada ma dayici doono waa lantii marka lan uhmila nasiixatak waxaan rabnaa hadal isku xiranaan tusaalayaasha dhan ka soo qaadanayna tusaalayaasha soo qaadanayna lan uhmila nasiixatak markuu ku yiri ushajicuka an tatacallama nahwa oo anti tatacallama ah ku kordhigtay waxaa tiri lan uhmila nasiixatak waanadaada iyo taladaada ma dayici doono marka lanti wataas uhmila kordhigatay wataas waayahay markii aad tiri waanadaada ma dayici doono oo waa ka faa'iidaysan doonaa oo aad tiri lan uhmila nasiixatak waanadaada ma dayici doono ayuu haddana qofkii wuxuu ku yiri idan tasila hadafaka haddaba waa gaari doontaa ujeedkaaga iyo hadafkaaga waa gaari doontaa idan tasila hadafaka ujeedkaaga waa gaari doontaa idantii wataas waxa weeye tasila kordhigata marka u fiirso tatacallama an tatacallama antiya kordhigatay lan uhmila lantiya kordhigatay tasila idanta kordhigata idan tasila hadafaka idan tasila wakaas hadafkaaga gaari doontaa idantii wax kordhigatay kaydii qof ayaa wuxuu ku yiri لازم كتاب الله كتابك إلهي كددال كتابك إلهي كدك قبص قرآنك إلهي كي يرفعك عند الله سي إلهي أكتيس أكو كرياله
ilahay agtiisa siduu boos sare kuu dhigo waxa weeye oo ilaahay kuugu kor yeelo kitaabka ilahay ku dhig kay yarfacaka cinda allah kay yarfaca oo taas kayda waxbay kordhigaysaa yarfaca oo kaas warka ma badinayno halkaas mithaala soo qaadanayna marka kay yarfaca oo taas kordhigatay kadaas iyo waa kelimo oo mafcuul iyo wax kala hawl kala wey marka u fiirso maxaan niri afarta wax kordhigata an tatacallama lan uhmila idan tasila kay yarfaca kadu kuma jirto waa kelimo kale kay yarfaca oo kaas afartaas marka ayagaa ficilkii kordhiganaya waayahay midda ku xigta waa laamukey ficilka way kordhigtaa laakiin an waxa ay kordhigaysa oo ay ku kordhigaysaa gadaalkeeda qadaran oo ay tahay qasab ay tahay jaa-is waa bannaan tahay in la qariyo ay bannaan tahay tusaale waxa weeye oo laamukeyda tusaale waxa u ah maalan ba waxaa tiri ji'tuka liaqra ji'tuka waa kuu imid liaqra'a dars si aan casharka u aqriyo liaqra'a waa laamukeyo likay aqra'a oo kale adoo yiri weye ji'tuka waa kuu imid liaqra'a dars si aan casharka u aqriyo likay aqra'a adoo yiri ka dhiganta marka an a meeshaas ku jirto lian aqra'a adoo yiri ay ka dhiganta antaasaa jaa-is ahaan loo qariyay ayaa wax kor dhiganaysa lian aqra'a adoo yiri ayay ka dhiganta marka laamukey waxaa loogu magacaabay kaydaa geli karta yani likay aqra'a ayadoo oo la yiri saasoo kale u geli kartaa waayahay ji'tuka liaqra'a dars waa kaas waxaa soo haray shantii antu gadaalkeeda in la qariyo ay ahayd midda koobaad shantaas waa laamuljuxuudi diidmada laamteeda wey laamtaas diidmada keenaysa ayana ficilkay kordhigtaa laakiin sida xaqiiqada shantan soo socota ayagu wax ma kordhigaan an gadaalkooda ku qarsoon ayaa wax kordhigaysa waayahay laamuljuxuud marka diidmada laamteeda maxaa loogu baxshay laamtaani waxay kordhigtaa oo antaas haba u qarsoonaatee ficil oo diidma ku jirto oo waxa weeye ficil kaana oo maalan ba la diido maa lagu diido ay ku jirto iyo yakun oo lam lagu diiday maalan ba tusaale qur-aankan soo qaadanayna ilaahay wuxuu leeyahy wamaa kaana allaahu ilaahay ma ahaanin liyucadibahum wa anta fiihim inuu cadaabayo adoo ku dhex jira marka wamaa kaana allahu kaanadaas diidma ku jirta soo maadaasaa diidma ah wamaa kaana allaahu ilaahay ma ahaanin liyucadiba laamtaasaa laamukey ah laamuljuxuud ah yucadiba wataas ficilka kordhigata marka liyucadiba wamaa kaana allahu liyucadiba marka maadaama ay ku dhex jirta jumla diidma ah alaamtii diidmada la yihahda oo kaanadaas maada diidmada laga hormariyay ay gadaalkeeda dhacday wamaa kaana allahu ilaahay ma ahaanin liyucadibahum humtu waa mafcuul ficilka la kordhiga ba'du ku haraa liyucadibahum inuu cadaabayo wa anta fiihim adigoo ku jira nabiga allow marka taas laamtaas waxay kordhigata haddii kun ay ka gadaal marto kun oo weliba lam lagu diidana walam yakun illaahu ilaahay ma ahaanin liyakfira lahum inuu u dhaafayo walam yakun illaahu liyakfira oo yakfiradaas waa ta laam ku gashay liyakfira markaas la kordhigay waxayna diidmo loogu magacaabay walam yakuntaas lam oo diidmaha ka horomartay marka yakun oo diidmo lam ah dib dhacday ay ka hormartay marka diidma maadaama xero diidmay ku jirtaa markaasaa laamtii diidmada la yiri markastaba diidmo dhexdeeda ku jirtaa walam yakun illaahu ilaahay ma ahaanin liyakfira lahum inuu u dhaafayo marka dad gooniya laga hadlay marka yucadiba iyo yakfira labadaba waa la kordhigo laamtaas aa lagu kordhigay diidmada dhex dhacday waa laamuljuxuud kelimada la yihahdo xataa weeye ka mida waxyaalaha wax kordhigta xataa ayada macanayaal kala duwanay noqotaa hal tusaalaan soo qaadanayna kitaab yar ma rabna wixii o dhan inaan ku sheegno hal tusaalaan soo qaadanayna qur-aanka xataa yarjica ilayna muusa xataa yarjica ilahay waa kaasle yarjica wataas xataadii oo wax kor dhiganaysa suuratu daaha ku jirta yarjica marka xataa yarjica ka qabso waxaa ku xiga waljawaabu jawaabkii bilfaai fadi lagu jawaabo iyo walwaawi waawda lagu jawaabo macnaha hadda hadalkan waxa weeye ficil oo jawaab dhacaya
ee ay fa gashay ama waaw gashay ayaa la kordhigayaa. an qarsoonana lagu kordhigaya. anta laamuljuxuudi way ka dambaysay, xataadana way ka dambaysay. xataadana way ka dambayso. antaas waa qasab in la qariyo, waajib wey meeshaas ku jirta. marka ficilka jawaabta dhacaya oo fada ama waawdu ay galayso asagana waa waxa weeye waa la kordhigaa. jawaab wuxuu u dhacaya waxa ka horeeya. meeshan 9 mas'alo weeye. 9kaas ayaa kulligood la wada kordhigaya ficilka dib dhacaya. waxa weeye gabaya lagu kulmiyaho murwanha wadcu wasal wacrid lixadihim tamanna warju kadaka nafyu qad kamula. marka yani hadda waa amar ficilkaasi dib dhacay, ama nahyo diidmahu dib dhacay, ama duco oo baryahu dib dhacay, ama su-aalu dib dhacay, ama bandhigu dib dhacay, ama boorinu dib dhacay, ama wax tamani ama rajo ama diidmu dib dhacay. yani waxyaalahaasoo dhan hadda waxaasoo dhan kuma dheerdheeraanayna. waxaasoo dhan markii kitaabaha kan ka waaweyn la gaaro ayaa la wada miithaalinaya, la tusaalaynaya. haddaan hadda halkan ku wada faahfaahino kitaabka wuu kugu ballaaranaya, waa ka niya jabaysa. annagana waxaan ugu talagalnay ajruumiga maadaama culummo fara badan ay duubeen, annaga qaybteen inaan hadda duubno qayb yar oo kookoobanoo aad u sii sahay qaadateed kitabaha dheerdheer aad ku gaartid si aad ku fahantid. marka tusaale hadda waxaan soo qaadanaynaa aan tusaale hadda fa'da iyo wowda aan soo galin. maalan waxaa tiri aqbil ilaya, aniga ii imow isoo qaabil, fa uxsina ilayka, si aan ixsaan kugu sameeyo. fa uxsina marka aqbil waa ficil amar ah, ficil amara weeye. aqbil ilaya, war aniga isoo qaabil, haye oo maxaa ii samaynaysaa? fa uxsina ilayka, si aan ixsaan iyo wanaag kugu sameeyo. ficilkaas fa uxsina ah ayaa jawaab dhacay, fa'daasaa marka gashay oo jawaab wuxuu u yahay isoo qaabilidii maxaa lagaa helaya? fa uxsina, marka inaa ixsaan kuu sameeyo. marka maadaama fa'daasi ay ficilkii jawaabka ahaa gashay waa la kordhigaya ficilkaas fa uxsina. waawna waa ka dhigi kartaa, wa uxsina aad dhigi kartaa, labada waa ka dhigi kartaa. fa iyo waaw midka aragtay aa ka dhigi kartaa. marka fa uxsina iyo wa uxsina labadaba. marka tusaalahaas bisa soo qaadanayna. waa kan koobaad oo amarka ahaa, kii nahyiga ahaa iyo kii ducaha ahaa iyo kii su-aasha, waxaasoo dhan ma gelayno. halkaa tusaale nooga filan hadda. halkaa tusaale ficilka jawaabka dhacaya ee fa'da iyo wowdu galaan waa la kordhigaa. jawaabka uu dhacayana 9kaas qayb mid ka midu ka dambeeya. hadda amar asagoo ka dambeeya kaliyahan soo qaadan. marka aqbil ilaya, war aniga isoo qaabilo ii imow, maxaan kaa helaya? fa uxsina ilayka, si aan ixsaan kugu sameeyo. ama wa uxsina ilayka, waxa xaqiiqada ah wax kordhigayana waa an meeshaas ku qarsano waajib ahaan loo qaray. waxaa soo haray aw. kelimada la yidhaahdo aw ayaa noo hartay. awda ayana waa midda u dambayda waxbay kordhigataa, ayadana waxbay kordhigataa. waxa sida xaqiiqada wax kordhigayana waxa weeye waa anta qarsoon oo gadaalkeeda ku qarsoon oo la qariyay. awda macnayaal fara badan ayay ku timaadaa. hal xabaa hadda ka soo qaadanayna, isku dheerdheerayn mayno. maalan ba waxa aad tiri laalzamanaka, waa ku daba joogaya. qof aad tiri qof aad dayn ku leedahay oo aad aragtay maaragtay in uusan waxaagii ku siininayn, aad tiri laalzamanaka, waan ku daba taagnaanaya. aw taqdiyanii xaqii, ilaa aad xaqayga isiid, ilaa an taqdiyanii xaqii, ilaa aad xaqayga isiidid kaama harayo. laalzamanaka, waa ku daba taagnaanaya. meeshaad tagtid jaaniya cirib dhigtid waa ku daba joogaa. aw taqdiyanii xaqii, ilaa an taqdiyanii xaqii, ilaa xaqayga ay isiidid waa ku daba joogay. marka awdaasi gadaalkeeda ficilka waa la kordhigaa, sida xaqiiqadana an qarsoon oo ilaa an taqdiya. awda bimacnaa ilaa ah. an taqdiyanii xaqii, taqdiya wakaas taqdiya. inta ka dambaydo niidaas iyo ha aadin, ficilka taqdiya uu ku egi. marka 10kaas shay ayaa wax lagu kordhigaa. 10kaas shay oo wax lagu kordhiga fahan tusaalayaasha halka xaba ka qaado. hadhow marka kitaabka la gaartid tusaalayaasha kuu badanaya, waa koraysa, waa weynaanaysa, fahamka kuu ballaaranaya. laakiin haddii kan koobaadba uu kugu badbato waa daalaysa. marka inaad naxwadii ka cartida imaanaysa. intaas casharkeena ku joojirna. wabillahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.